السلام عليكم. maanta oo ay taariikhdu tahay 5 bisha Maarso ee sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminaya ay soo gaareen magaalada Dawxa ee dalka Qatar, halkaas oo ay uga bilaamatay safar shaqo oo qaadan doona muddo 2 maalmood ah. madaxweynaha Jamhuuriyaddu waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, halkaas oo labada hogaamiye ay kaga wada hadli doonaan sidii loo ballaarin lahaa isla markaana loo dardargelin lahaa xiriirka iskaashi iyo kan wax wada qabsi ee ka dhaxeeya labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. Bari oo axad ah waxaa sidoo kale lagu wadaa insha Allah in labada hogaamiye wada hadallo rasmi ah ay uga furmaan magaaladan Dawxa. dalka Qatar waxa uu ka mid yahay dalalka sida mugga leh dowladda federaalka ee Soomaaliya uga garab siiya dib u dhiska dalka. waad mahadsantihiin.